khasaare halka ka dhacay anigoo ka wakiila madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la wareegtay xukuumadda inta xanuunsanaysana gacanta lagu haynaya intii dhimatayna waxay xuquuq lahayn xukuumadda la wareegtay laakiin waxaan ma ahayn wax qorshaysan oo abaabulan oo Soomaaliland lagu dhawaataynayo wax isna siyaasadda ka dhacay ayuha rutaadiyad baan uga xumahay وانا كتعسيدين الصوماليلاند oo dhan shacbiga reer awdal waxaan leenahay waa shacbi odayaal u nool yihiin dhaqan wanaagsan waa dad ku sifooba culamaa wadiin caana oo dadkana qayb ka soo qaatay runtii maanta waa munaasabad aad u qiimo badan oo xilka u kala wareejinayno gudoomiyihii hore gudoomiye Maxamed Xoday iyo Cabdirashiid Xasan Mataan oo ah gudoomiyaha cusub gobolka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland u soo magacaabay waa sunnaha dawladnimada xil wareejintu oo wax iska caadi ah